wixii aanu wax ka bedelay way isku hoos qoran yihiin wixii aanu taabanay way isku hoos qoran yihiin wixii aanu taabanay way isku hoos qoran yihiin wixii aanu bedelayna waa qoran yihiin wixii aanu ka bedelay waa qoran yihiin labadii oo isku hoos qoran baa helaysaan wixii aanu bedelay ee taabanay way isku hoos qoran yihiin يا قاطع قلاه ويا الله وايه بسم الله الرحمن الرحيم وايه وايه قلاياش مدنياش قلاها يقرا له هذا حق واحد وليدهين ان هذا الشان wax ka bedelka iyo xeerka labadaba waa la idin siinaya waa lagu qasban yahay xogeynta idin siinaysa wixii aanu taabanayna oo isku hoos qoran yihiin wad isla eegi doontaan marka waxba yeeynaga xumaan waaye bismillaahir rahmaanir rahiim xubnaha golaha marti sharafta iyo saxaafadda guddoonka sharafta leh mudanayaal waxaa naloo dhiibay annagoo ah xubnaha xaggan ku saxiixan annagoo ah xubnaha halkan ku saxiixan oo ah xubnaha golaha wakiilada lix xubnooda iyo garyaqaanada golaha oo laba ah waxaa naloo xil saaray wax ka bedelka iyo kaabista xeer lambar 14 xeerkii la yiraahdo diiwaangelinta ururada iyo axsaabta isaga oo iyadoo la eegayo muhiimadda uu leeyahay xeerkaasi iyo duruufaheena maanta jira si la isu waafajiyo waxaad ka war haysaan marka la qabanayo ururada doorashadooda waxa lagu beegi jiray oo ay la socotay golayaasha deegaanka ururku wuxuu ku soo bixi jiray xubnaha golaha deegaanka ee uu magacaabo codadkooda waxaynu ka war haynaa doorashadii golaha deegaanku inay inoo mudaysan tahay hadda 31 May maadaama 31 May ay inoo mudaysan tahayna xisbiyadii muddadii sharciga ahayd ee ay liisanka xisbinimada haysteenna ay naga eeg tahay 2022 si aynu taa u daboolo mabaadi'da waaweyn ee meesha taala waa laba qodob oo hoosta ka xariiqaysaan mabda'a koowaad waxa weeye in xisbiye ururada iyo xisbiyada mar dambe aanay ku soo bixi doonin doorashada golayaasha deegaanka ee ay tahay doorasho toosa oo la kala dooranayo axsaabta iyo ururada jira ee la diiwaan geliyo si sharci loo diiwaan geliyo macnaheedu waa mabda isbedelay oo markii hore wuxuu ahaa waxa lagu diiwaan gelinayay waxa lagu soo baxayay doorashada golayaasha deegaanka sida xeerku tilmaamay cidda ku soo baxda ayaa xisbi noqonaysay hadda waxa weeyaan doorasho toosa oo xisbigu mabaadi'diisa iyo afgaartiisa iyo ashqaastiisa uu ka iibinayo isagu public ah waxa weeyaan ayay noqonaysaa in lagu soo baxo ta kale xisbiga dhisnaa ee hore u sii jiray ee fursadda 10 sanadood la siiyay waxa weeyaan waxa waajib ah 10 sanadoodba mar inuu eego afkaarta iyo waxqabadkiisa bulshada wixii uu gashaday sida looga raaliyahay macnaheedu waxa weeyaan bulshadu ama waa inay aqbashaa afkaartiisa ama waa inay diidaa mabda'a kale ee isagana meesha ku jira wuxuu yahay doorashooyinka inagu soo socda marka laga tago golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo dhacaya May doorasho kasta oo ama gole ama madaxtooyo waxa qaban kara oo kaliya loo qabanaya xisbiya haysta muddadii sharciga ahayd oo 10 sanadood iyadoo oo ay dhacday muddadiisii 10 sanadood ahayd doorasho madaxtooyena ma gali karo doorasho golayaal lama gali karo sidaa daraadeed mar walba waa inuu haystaa muddadii 10 sanadood ahayd liisankii la siiyay oo sharci ah waa inuu haystaa labada madba waaweyn sidaas labada principle isu bedeleen waxyaabaha aanu taabanay xeerka kamid ah wad arki doontaan waxyaabana waxa weeyaan waa la faahfaahiyay oo sida gudidu ay ku imanayso muddada gudida ee xilhaynta qodob wada tilmaamayay waxaanu ka dhignay
farqadu ahaa markii hore qodob baanu ka dhignay wuxuu ahaa markii hore qodobka saddexaad buu ahaa qodobkaas saddexaad farqadihiisa afraad shanaad lixaad toddobaad iyo tobnaad waxaanu ka dhignay qodobo sidooda ah dabadeedna waxaa ka soo baxaya muddada xilhaynta waxaa ka soo baxaya magacaabista iyo habka loo magacaabayo oo cusub waxaanu ka dhignay nidaamkan magacaabista ee la xidhiidha xubnaha guddida waxay ku imanayaan 2 xubnood oo madaxweynuhu soo xulayo 2 xubnood ay soo xulayaan shirguddoonka golaha wakiilada 2 xubnood waxaa soo xulaya ururada bulshada oo midkood haween yahay iyo 1 xubin oo ururada qareennada ka imanaya sidaas ayaanu u soo jeedinay inay ku yimaadaan nidaamka loo ansixinayo habka ay marayaan waxaasoo dhan wuxuu noqonayaa kii hore marka ay bannaanaato xubintuna iyadana qodob kale ayaanu ka dhigno oo aanu faahfaahinay dhaarta la xidhiidha xubnahan waxaanu ka dhignay dhaar waafaqsan ta guddida doorashada waxay la dabeecad yihiin oo la mid yihiin guddida doorashada ee qaranka sidaa daraaddeed maadaama ay yihiin iyaguna marna guddi garsoor ay yihiin marna guddi maamul yihiin waa inay maraan dhaartaa ku xusan waxa la yidhaahdo xeerka doorashooyinka ee guddida doorashooyinka mudanayaal qodobada la xidhiidha ruqsadda waanu faahfaahinay muddada ruqsadda xisbiyada muddada ruqsadda ee xisbiyada qaranku waxay noqonaysaa 10 sannadood oo taariikhda ruqsadda la siiyey ka bilaabaysa ruqsadda ogolaanshaha xisbiga wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toosa oo loo qabtay ururada iyo axsaabta isla markaana si rasmi ah uga mid noqday 3 xisbiya qaran xisbiyada ay dhammaatay muddada ruqsadda la siiyey ma geli karaan doorashada madaxtooyada wakiilada iyo deegaanka waxaanay ahaanayaan xisbiyo ku meel gaadha ilaa inta laga qabanayo doorasho toos ah oo ay ku soo baxayaan xisbiyo qaran qodobkaas waxaan malaynayaa inuu cad yahay oo ilaa iyo la qabto iyo ururada la qabto aanay suurogelayn doorasho kale in loo gudbo waxa weeyaan waa dabar ku xidhan doorasho kasta oo ah waxa la yidhaahdo la qabanayo waa inuu jiraa xisbi haysta diiwaangelinta canshuurta iyo waxaasi waxaa laga bedelay iyadana waa la kordhiyey waa laba jibaaray oo waxa weeyaan si ay u yaraato waxa la yidhaahdo ururada faraha badan ee aan macnaha lahayn ee dad dee uun iska diiwaan gashada waxa weeyaan waa in dhaqaale lagu xidhaa la cusleeyaa sidaa daraaddeedna ciddii iska bixinaysa contributionkeeda iyo nidaamkeeda leh waxa weeyaan 300 milyan baa laga dhigay iyaduna waxay noqonaysaa waa dabarada adag ka mida ee aanu ku xidhnay mudanayaal waxaanu samaynaynaa insha allah wixii wax ka bedel ah ee xeerkan ku tilmaaman waxaa yaallaa hortiinna xeerkiina waa laydiin dhiibayaa waad isla eegaysaan waxyaabaha yaryar ee kooban ee la bedelay waxaa ka mida nidaamka lagu waayi karo xubinnimada oo waxaa dhacda haddeer aad aragtaan ururadu xisbiyadu inay noqdeen meel qofkii la doono laga saari karo qof kaadara oo xisbigu leeyahay oo intuu doono joogay oo xaq ku leh oo wax dembiya aan la gelin in la yidhaahdo hal qof yidhaahdo waan kaa saaray iyaduna waxaad eegi doontaan nidaamka loo marayo ilaa maxkamadda sare waa inay gaadhaa ay noqdaan go'aan ilaa maxkamadda sare uu qofku ku qanco oo aan laga saari karayn oo aan la odhanin iskaga baxuun waa inay jiraan nidaamka iyo jaranjarada aanu dhignay ee dheer waa inuu maraa guddi fulineed waa inuu maraa golo dhexe waa inuu maraa hadduu ku qarci waayo maxkamadda uu tagaa waxaa la yidhahda waa inuu tagaa waxaa la yidhaahdo guddida ururada intaasoo dhan marka uu maro
haddii ku cadaato dembi uu kaga bixi karana waxa weeyaan ahlan wa sahlan haddii kalena waxa weeyaan waa in aanay dee qof la iska eriyin oo la odhanin adigu iskaga baxa nidaamka kale ee uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah waxaa jirta axsaabtu waxay samaystaan qaab dhismeed iyagu ay doonaan oo aan waafaqsanayn xeerkan qaab dhismeed kasta oo xisbigu yeesho waa inuu noqdaa miduu xeerkani oggolaaday oo ah guddoomiye ku-xigeen xoghayn sidaa daraaddeed baa waxaa loo yaqaanaa oo xeerku uu ku fasirayaa hoggaanka waxa weeyaan waa hoggaanka sare ee matalan guddoomiye ku-xigeenno iyo xoghaye sidaa daraaddeed wixii intaa ka baxsan waa wax aan waafaqaynin xeerkan oo aan la odhanaynin waxa weeyaan wuxuu waafaqsan yahay xeerkan sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in la ansixiyo nidaamka ganaaxyadana isagana waanu habaynay saas aawadeed waxaanu soo jeedinaynaa in la ansixiyo soo jeedintan wixii su'aalo la'aan hadday jiraan ahlan wasahlan